inta badan dhacda markay labada waalid kala tagaan inuu markaa ku yimaado familiga dhammaantii isbedelkaasoo markaa inta badan ku dhaca caruurta waxaa laga yaabaa meeshii ay deganaayeen inay ka guuraan oo markaa meel kale cusub ay degaan markay meesha ka guurana waxaa dhici karta markaa caruurtii in laga bedelo iskuulka dhiganayeen waxaa laga yaabaa in magaranaysa taasina ay keento caruurtii inay iskuulkii ay waayaan waxaa kaloo dhici karta in caruurtii asxaabtii ay barteen ay la soo noolaayeen ay kubadda wada ciyaari jireen ay jecelaayeen iskuulka soo wada bilaabeen markaa inay waayaan marka taasi markaa ilmo waxay ku keentaa magaranaysaa in markaa ilmihii culays uu ku yimaado culayskaasoo inta badan keena markaa in ilmihii la qabsan waayo ama ay waqti badan ku qaadato meesha cusub ee loo guuray iskuulka cusub ee ilmihii loo bedelay asxaabta cusub uu yeeshay in markaa ilmihii magaranaysaa ay saameyn ku yeeshaan markaasi inta uu la qabsanaya waqti qaadanaysa inta iskuulkii iyo macallinkii iyo degaankii markaa cusub ay u soo guureen oo baranaya waqti qaadanaysa taasina markaa ilmaha qaarkoodna waxa laga yaabaa inay si dhibirga gudbaan qaarkoodna markaa waxa laga yaabaa inay aad iyo aad uga adkaato oo magaranaysaa waqti dheer ay ku qaadato qaarna markaa ay dhibaataba kala kulmaan marka ay arrintaasi cusub ama meesha cusub ay degeen ay la jaan qaadi kari waayeen markaasi qodobka saddexaad waxaa inta badan isbedesha caruurta xiriirka la lahayn labada waalid marka qaarkood waxaa dhacda magaranaysaa ciyaalku inay garan waayaan kay daacadu noqonayaan kay markaa magaranaysaa maadaama meesha dhibaata timiday labadii waalid is qabsadeen dhibaata dhex martay dhibaatadaas markaa ilmaha waxay inta badan dhaawacdaa daacadnimada waalidka u yahay waxaa laga yaabaa inuu isagoo markaa waalidka mid isagoo raali geliya markaa magaranaysaa midka kale dhinac uu magaranaysaa u janjeersado waxaa kaloo dhici karta magaranaysaa inay labada waalid mid kamid ah iska hor yimaadaan oo isku dhacaan ilmihii marka inta badan waxay dhaawacdaa magaranaysaa oo ku keentaa magaranaysaa khalkhal ama jahawareer ilmihii labadii waalid maadaama ay kala guureen oo ay kala tegeen yaa daacadu noqonaysaa keebaad magaranaysaa sirtaada ku aaminaysaa keebaad wax walba u sheeganaysaa keebaa kuu noqonaya markaa saaxiib dhow keebaa markaa kuu noqonaya inta badan magaranaysaa saaxiib aada u dhow oo magaranaysaa dee aad wax walba markaa la qaybsato oo xaaladahaaga magaranaysaa mararka qaarkood ku private aad la qaybso aad u sheegtaa ama sideebaad markaa labada waalid isugu miisaantaa oo taasina inta badan waxaa carruurta ku dhacdaa dhibaato maadaama labadii waalid ba ay dhaleen maadaama labadii waalid aan isku fiicnayn magaranaysaa dhexdo dhibaato taalo dhibaatadaas ilmaha waxay ku keentaa markaa kalsoonidii ilmuhu qabay ama daacadnimadii ilmuhu u qabay waalidka in markaa ay hoos u dhacdo oo markaa magaranaysaa ay ku adkaato markaa inuu isku miisaamo siduu labada waalid ee markaa dhibaatadu ka dhaxayso siduu iskugu wadi lahaa siduu iskugu hayn lahaa maadaamay noloshooda labada waalidba ay saameyn ku leeyihiin qodobka afraad inta badan waxaa dhacda caruurtu inay kala kulmaan dhinaca magaranaysaa xamilka inay dhibaatada u adkaysan dhibaato keento tusaale kale waxaa laga yaabaa ilmi inuu iskuulka ku fiicnaan waayo waxaa laga yaabaa inuu ilmi magaranaysaa noqdo ilmo agressiif oo dagaalamaya waxaa laga yaabaa ilmi markaa in cadho badan uu la yimaado waxaa laga yaabaa in waxba badan markaa ilmo isbedele inta badan ay ku dhacdo oo xitaa awoodii uu lahaa ama kartidii uu lahaa inuu wax aqriyo iskuulka magaranaysaa ku fiicnaado marka ay hoos u dhacdo oo meeshii magaranaysaa ka baxdo iyadoo marka ay sababayso magaranaysaa kala tagaasi caruurtu iyo kala taga marka ay kala tagayaan labada waalid waayo ma garan karaan waxa dhici kara mustaqbalka su'aalo badan marka carruurtu isweydiinayaan haddii aabiyo ay kala tageen hadduu aabba meesha ka baxay ama hooy meesha ka baxday maxaa dhici doona ilmihii markaa warwar badan baa ku abuurmayo ma garanaysaa islee talo maxaa kugu dhici doona mustaqbalkaaga sidee bay wax isku bedeli doonaan maxaa dhici doona waxaa badan markaa ilmi isweydiinaya isweydiintaas marka waxay keenaysaa ilmi markaa jahawareer ku dhaco kadib markaa uu ku ficnan waayo waxbarashadii waxaa laga yaabaa inuu isdhexgalkii ama bulshadii ku noolaa laftigeeda magaranaysaa dhibaata kaga timaado marka waxyaaba badan baa inta badan sababaya magaranaysaa markaa ilmihi inay ku dhacdo magaranaysaa kalsooni darro ama markaa uu khalkhal ku yimaado dhinaca noloshiisa qodobka shanaad waxaa iyada laftigeeda dhacda markaa caruurtu inay marka qaarkood ay ka xishoodaan ama ay sheegaan dhibaatada dhacday hooyada aabad ku kala tegeen marka waxaa laga yaabaa saxaabtiisa inuu kala khajilo ama uu kala xishoodo waxa keenay aabiyo hooyo inay kala tageen taasi markaa waxaa dhacaysa markaa saxaabtii ka fogaado waxaa dhacaysa markaa magaranaysaa inuu isku daynacaas inay dadkani ogaanin dhibta dhacday magaranaysaa hooyada aabaha ka dhex taagan ama dhibta keentay magaranaysaa inuu familiga burburo la kala guuro marka isagoo taa ka xishoonaya ama marka qaarkood aan fahansanin wax la isku haysto waxaa laga yaabaa taasi markaa inay u keento magaranaysaa inuu markaa saxaabtii fiicneed uu lahaa ama asxaabtii lahaa markaa uu lumiyo oo markaa ama guriga isku soo xidho ama markaa uu isku dayo magaranaysaa inay su-aasha inaan la weydiin oo ciddii isle markaa ku weydiinaysaa markaa ka fogaado waayo waxaa laga yaabaa dhibta la isku haysta ama loo kala tegin una fahmin ama waxaa laga yaabaa inuu u arkay magaranaysaa inay tahay foolxumo in aabihooya kala tagaan
uu isku arkay magaranaysaa noloshiisa inay ku timid magaranaysaa qiimo dhac ama markaa inuu hoos u dhacay ama markaa inay dhibaato timid dhinaca familiga ama dhinaca private life wax loo yaqaano taasi markaa ilmihi inay keento magaranaysaa inuu xoogay ka fogaado oo magaranaysaa cillo markaa uga baxo magaranaysaa dadkii ku dhex noolaa iyo asxaabtiisii labadaba. qodobka lixaad waxa dhacda inta badan markay familiyada kala tagaan xitaa qofku markay weynaado inay saameyn ku yeelato saameyntaasina inta badan ay keento inuu soo xasuusto dhibaatadii ka dhex dhacday magaranaysaa waalidkii kadibna haddii uu markaa inay yahay markaa inay ku adkaato markaa inuu gabadh guursado isagoo markaa dhibaatooyinkii markuu yaraa soo maray isagoo markaa ka baqaya markaa inuu kalsooniba heli waa dhici karta. gabadha laftigeeduna waa saas oo kale haddii markaa ay aabeed hooyada dhibaato ay soo kala dhex martay oo mushkilado badan ay dhaceen inay markaa raggaba ka cabsatay ka maagtay tirada magaranaysaa malaha raggani waa sidii aabbahay oo kale haddii aad guursato bille sida bille ay dhacday magaranaysaa wixii adig kugu dhaco kale markaa warwar badan baa qofka ka yimaada. taasina inta badan waxay keentay qofka saameynta noloshiisa mustaqbalka markuu weynaado inay saameyn ku yeelato magaranaysaa mar walba uu xasuusto wixii uu markii yaraa ku soo dhacay taasina inta badan ay geeysiisa magaranaysaa inuu nolosha wada noolaashaha labka iyo dhidiga ama wada noolaashaha magaranaysaa ama inuu qofkii markaa guursado markaa uu ka boqo oo ay ku adkaato markaa cabsi ka qaadayso magaranaysaa wallahi haddaad guursato wixii dhacay unbaa dhici ee waxbaha guursan markaasi marka waxaa ku dhacay inta badan magaranaysaa warwal xagga magaranaysaa mustaqbalka ah oo marka had iyo jeer baa qofku haddii uu markuu yaraade inkastoo kala duwan yahay haddana markuu yaraa hadduu dhibaatooyin kala soo kulmay oo magaranaysaa kala tagii iyo wada ama dee familigu markuu yaraa ku dhex noolaa ay dhibaato iyo buuq yar ku dhex noolaayeen markuu weynaado waxa laga yaabaa inuu sida dhibtii unbaa jirta haddii aad guursato magaranaysaa wixii unbaad la kulmi markaad yareed ayuunbaa jira marka inuu markaa guurkaba iska noco markaa faraaba ka qaada inta badan dhacdo. qodobka toddobaad kolley waxaan ognahay magaranaysaa inay arinta kala tagu inta badan ay saameyn aad iyo aad u ballaaran ku yeelatay caruurta oo magaranaysaa ay dhibaatooyin badan markaa caqabado badan la kulmaan marka had iyo jeer marka dhibaatadaasi dhacda waxaa inta badan muhiima markaa in wada hadal la furo wada hadalkaasina uu noqdo maraysaa mid daacad laga yahay oo inta badan markaa si fiican markaa caruurtii wixii dhacay loogu sheego markaa laga dhaadhiciyo magaranaysaa wixii dhacay sidii markaa magaranaysaa xal loogu heli lahaa. marka arinta laga hadlayo magaranaysaa kala taga had iyo jeer bada kulle waxaa ku xidhnaan doontaa dhibta dhacday nooca ay tahay ilmo inta uu leegyahay ciyaalka qaar baa magaranaysaa aan dhibaato badan aan la kulmin qaarna aad iyo aad ba u saamaysan noloshooda dhibaata ku dhacda oo waxaa laga yaabaa inuu culays badan markaa ku yimaado qaarna waxaa laga yaabaa inay dhibtaasi ka badbaadaan oo xoogay markaa adkaysi ay la yimaadaan dadku markaa isku wada nooc maaha wayna dhacay waxaana ku xidhantahay labada waalid markay kala tagaan sida iyaga laftooda u dhaqmaan haddii intay kala tagaan dani walba dantiisa raacdo caruurtiina la wada korsado inkastoo caruurtu dhibaato dareemayaan haddana way ka fududaanaysaa laakiin haddii dhibtii dhacday caruurtii la dhex geeyo labadii waalid magaranaysaa caruurtii isku adeegsadaan oo magaranaysaa caruurta hortooda magaranaysaa la isku caayo oo magaranaysaa aabbo kale magaranaysaa inan ilmihiisa magaranaysaa oo hooyadii magaranaysaa caruurta u dhashay uu ku horbaadilo hadalla xunxun ku yidhaahdo yacni uu qiimeyn waayo markaa ilmihii markaa xanuun buu dareemaya hooyaduna waa saas oo kale haddii markaa ilmihii aabbaha dhale ay caydo nasabadiisa wax ka sheegto ay qiimin weydo ilmihii markaa dhibtaas buu dareemaya marka had iyo jeerba waxaa loo baahan yahay qofka waalidkii inuu ogaado sidaanad u jeclayn adiga waalidka in la caayo sidaanad u jeclayn hooyada la caayo sidaanad u jeclayn aabbaha la caayo ayuu ilmahana markaa yahay marka had iyo jeerba waxa weeye waxa ilmaha dhaawacaya waxa weeye haddii waalidkiisa mid kamid wax laga sheego ilmahaas ma faraxsananayo ilmahana kuma soo jiidan kartid ama kuma kasban kartid inaad hooyadii caydo ama aabiyaada caydo labada dhinac dhici doonto toon marka taasina waxay keenaysaa ilmahaas inuu ku nooco in cuqdad qaado ama waxa uu waalidkaasi ka sheegay waalidka kale ilmahaas markaa aaminaba isagoo wallahi waxa laga sheegay aabaa waa run ama hooyada waxa laga sheegay waa run marka qaarkood waxa dhacda markaa ciyaalku inay ku yiraahdaan waa kii aabaa caynka kugu lahaa ama tooya sidaa ku raad qofku uu ku yiraahdo markaa qofka waalidkiisa taasina inta badan waxa ma soo kordhiso waxa keenta magaranaysaa ilmahaagu ku noco inaad kala fogaataan baa dhacaysa marka had iyo jeer waxa weeye in waxyaabaha magaranaysaa xun laga fogaado aad iyo aad bay muhiim u tahay way calafku u dhamaadaa mar hadduu calafka dhamaadana waxa weeye laakiin caruurtii may dhamaanin waalidnimadii halkeedii bay joogtaa waxba iska markaa bedelayaan haddii aad kala tagtaan aad joogtaan marka mas'uuliyadeeda sideeda loo hayo waxa le wixii dhibaato ama garsin caruurta laga fogeeyo laga ilaaliyo aad iyo aad bay muhiim u tahay barnaamijkan ama mawduucan waa mawduuc aad iyo aad u ballaaran marka intaasaan kusoo koobayaa maanta aad iyo aad baad u mahadsantihiin daawashada daawanaysaan programyadan barnaamijkeenina maanta intaasaan kusoo koobayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh